السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأن إذن الله دمانتين أيال تيم أي أحد سود هذا تيك توك ولا جوري أيال وكجوري تيك توك and كسود هذا channel كان أو يوتيوب هذا كتب ما نخدم طا ماشان كلنا ماشان كلنا دهرنا ماشان عن كلي الله freedom إن بعدهن أكو يلندونه أيال سأول سعتين فرت أدب أقول ما سنتين والله you guys touched my heart and قلبي قمت خانة بعد إتهابتهن يقوحيستان يقوحيسينيسان يسور هذه السن الله يعزك بني الله إلهي هذه كراميو إلهي هذه شرفه إلهي هذه جعل هذا ملائكتي هذه جعلهاته cool midda labaad ayaal aad tiktok aan u xiray baa rabtiin inaa ogaatiin tiktok meel aan horta aada u jecelaha weeye meel I'm grateful for it inaan mataqaana idinkoo dhan aan xaggaa idinka ka wada bartay ama idinka i barateen dad aan isku fiican nahay oo yacni walaaltinimadeena meel dheer gaartay baa jirto. I am very grateful for TikTok. لكن TikTok waxaan ku arkay wallahi waxaan kala kulmay especially this last month waxaan la yaabay aniga horta saa ogtihiin ay la socotiin mihi dadka ma taqaana dadka ku mashquulo bini aadanka ku mashquulo dadka caayo dadka ma taqaana jijiito dadka xaxagto. That's not my character. Waa ogtihiin taasi idinkaaba iiga markhaati ah inaanan ahayn dadka bini aadanka ku dhagdhago hase ahaatee waxaan la yaabanahay tiktokaygii wallahi dee ma rabi inaan dadka ku dambaabo mana rabi inaan dhaho waan i report gareeyey laakiin su-aal baan isweydiiyey maxay tahay reportkan liga daba jiro reportkana ma aha wax kale hataa waxaa meesha ligu soo qorayaa harassment and bullying. qoftaan dadka harass karaysa bullying baa dadka ku samaysa macnaha waa dad mataqaana dadka caayo dadka wax ka sheego dadka wuxuuna ahayn mataqaana ama dadka baarigoodi shame gareeyo qofka buuran oo kale ama qof dhuuban oo kale ama qof sisi ah oo abuurta ilaahay wax ka sheego oo kale weeye harassment bullying anigu goormaan bully gareeyaa dadka goorma anigu dadka bully gareeya oo haraas gareeya anigu anaaba la haraas gareeya anaaba la caaya anaaba la bully gareeya I don't care badana dadka ku jiro social media waa kala isku mid maahan dad qaar baa social media ku jiro ay ku jiraana waxayba tahayba dad ciil hayo weeyaano inay dadka caayaan meel baa xanuunsan meel baa xanuunayso. So they opportunity markay helaan platform ay dad badan ku helaan markay helaan waaba meesha ay doonayeen sababtoo ah markaas ay soo dhiganayaan inay dad caayaan dad ku jeestayaan dad qanjaruuftaan xagtaan ciilka ku jiray oo dhan ay kusoo matagaan dad qaarna way soo galaan deeroon dadka waxa ma dhibaatayaan waxoodii bay soo dhigaan yaa salaam way ka baxaan si laan dheernimo ku jirtay ka baxaan dad ay dhibaan male dad qaarna way soo geliyaan wuxuu dadka ma dhibaan laakiin commentkooda oo dhan bay kaa xiranayaan because waxay ogyihiin caafimaad darro inay u tahay. anigu waa la yaabi jiray dadkaas markaan tiktok soo galo waxaan jiray horta dadkaan maxayba social media ugu jiraan waaba sensitive maxay ugu jiraan social media platform oo dad mataqaana public ah haddayna mataqaana ay adkaysi lahayn oo dadka commentka dhibayaan oo maxaa ugu jirtaa baan dhihi jiray judge garan jiray laakiin I realize wallahi dee wax fiican bay sameeyeen sababtoo ah fiiri qof waxba ku yeelin ku caynaynin ka war habeenii maalin aa caynaysid video buu kuu soo dhigayaa waqti badan buu geliyey maxaan ku dhaha time badan baa oga baxday effort badan baa oga baxday wuxuu ka hadli lahaa iyo wuxuu rabo inuu ka hadlo uu ka soo fikiray wuu ku soo dhigay meesha ku dhihi lahayd jazaaka allahu khayran waa mahadsan tahay waqtigaas ila qofkaasi waqti buu ku geliyey precious ah
haddii aadan ka helin wuxuu soo dhigona waa laga gudbaadee because qasab maaha qof waliba oo wax soo dhigo inaad ka heshid. dad qaar kama helaysid. aniga naftarkayga dad qaar baa jiro aanan ka helin waxba iguma sameynin, laakiin anigu ma caayi dadka. kaamad xun uma soo qorayo, horaan ka dhaafaa. I scroll bum waa dhaafaa. yacni hadduu qofka mataqaana hataa wax negative sheegayo kuma qori hataa ma dhihi walaalo waxaa iska daa waxaa, because I know qofkan ugu talagelay negativitygaas ugu talagelay wuuna rabaa inaa kaamad loo soo qoro oo lagu dhaho walaal waxaan iska daa kuma fiicno bababa, because viewskiisu waa kor inuu kaco. so waa iska ignore garayaaba, maba encourage garaya, waa dhaafaa. haddii aan dhibsadano black anaa iska saaro saa qofkaas u arkin. laakiin qof waxba kuugu sameynin inaa caydid waa laga fiican yahay. aniga marka taydii aan kusoo noqdo intaasi markaan ka hadlo taydii aan kusoo noqdo waxaan arkay videoyaashiin inaa la report gareynayo oo la leeyahay harassment and bullying bay samaysay. tiktok oo isoo duraasoo leedahay waxba ma post gareyn kartid, waxba ma comment gareyn kartid, waxba mataqaana live ma soo geli kartid, message laguma soo diri karo, wax waliba dhac. midda kale waxay ku xun yihiin tiktok meel aad ka dhigi kartid male intaad email u qortid aad wax ka sheegi kartid male, meelaad telefonka wici karto male. the only thing aad samayn kartid is videoga xunay mataqaana kaa qaateen inaad appeal ku taabatid. appealkana waqti bay kugu qaadanaysaa marmar inay kaaga soo jawaabaan. marka imanka aniga maxaa igu dhacday marka I know inay waxa qofka ay report gareynaya ama dadka ay report gareynaya wax qalad ay igu report gareynayaan. appeal baan taabtay. waan ogahay anigu videoyaasheedii inayna ku jirin wax bullying, wax harassment, wax dadka caayo, because I'm not about that life. marka appealkii markaan dalbado 3 video mise 4 video mise 5 video bay usbuucan dhexdiisa iyo usbuucana soo dhaafay ay igu qabsadeen dhac harassment and bullying, harassment and bullying, harassment and bullying. yab anigi anigu dadka ma haraas gareeyay ciil bay qabto. walaa waxaan yiri you know what, I should be harassing people. harassment kan aniga igu qabanayaan ay leeyihiin dadka haraas garaysa bully garaysa dhab ma uga dhigo batay. ha igu report haday igu taabtaan ha noqdo wax legit ah, you know. but anyways appealkii markaan sameeyay adigu maanta ii soo celiyay shalay madaraad waxay yiraahdeen waxba ma post gareyn kartid ilaa adigu bishaan ay ka dhamaanayso. there was one video then waan ogahay anigu videoyaasheedii inayna ku jirin wax bullying, wax harassment, wax dadka caayo, because I'm not about that life. marka appealkii markaan dalbado 3 video mise 4 video mise 5 video bay usbuucan dhexdiisa iyo usbuucana soo dhaafay ay igu qabsadeen dhac harassment and bullying, harassment and bullying, harassment and bullying. yab anigi anigu dadka ma haraas gareeyay ciil bay qabto. walaa waxaan yiri you know what, I should be harassing people. harassment kan aniga igu qabanayaan ay leeyihiin dadka haraas garaysa bully garaysa dhab ma uga dhigo batay. ha igu report haday igu taabtaan ha noqdo wax legit ah, you know. but anyways appealkii markaan sameeyay adigu maanta ii soo celiyay shalay madaraad waxay yiraahdeen waxba ma post gareyn kartid ilaa adigu bishaan ay ka dhamaanayso. there was one video then way ii soo noqdeen waxay yiraahdeen sorry mistake baan sameynay, videogii appealka waa ku ogolaanay, videogu waa soo celinay, maxaan ku irahdaa that's it. okay saacad kadib haddana video kale baa la igu report garay dhaq harassment and bullying, community guideline baad jajabisay, dadkaad harassment ku wadaa, dhibaata dadka ku wadaa, waxba ma post garin kartid for like another week. appeal kale dalbo haddana for another video way soo celiyeen. waxay yiraahdeen okay waa ku soo celinay videoga harassment iyo waxba ma sameynin, sii wada meeshaadi. okay wax yar kadib dhaq another one. adigu idinka been baa umaleynaysiin, laakiin dadkii la socda baa og in waxaasi ay jiraan, sababtoo ah message hataa qofka ima soo diri kareenin. messageyaasha luuqa hataa liima soo diri karo because wuxuu leeyahay qofkan messageyaasha luuqa hataa ma aragtay liima soo diri karo, sababtoo ah wuxuu leeyahay qofkan community guideline-kii wuu jajabiyey, waxba uma diri kartid. qofna ima soo faal gareyn karo. hadduu isoo faal garo hore u sheegaya qofkan wuxuu ku jiraa block ku jiraa. so anyways dadka qaar waxay leeyihiin maybe waxay doonaysaa YouTube kan uu kala kaco, that's why been bay sheegaysaa. but I think dadka oo igu xiran
they know inaan anigu de even haddaan doonayo inaan mataqaana YouTube kala kacsado I still waa kala kacsan karaa sababtoo ah waxyaalo fiican baa soo dhigaa waxyaalo mataqaana wanaagsan oo laga faa'iideysta baa soo dhigaa dadka dhibo ma ihi dadka ku mashquulo ma ihi mashquul oo dhan baaba necbahay because anigu noloshaydi baa aniga busy isku ah so waqti uma hayo qof bini aadan inaan mataqaana caayo ama ku mashquulo ama wax mataqaana oo de malaayacni aan soo dhigo you know so dad qaarna meesha waa arkay commentka kusoo qoray dad qaarna waan arkay commentka YouTube ama TikTok video ugu dambeeyay aan soo geliyay ku qoriyo nin baa heshay ninkeeda waa ku yiri waxba soo galeen anigu ma eegahay naag loo taliyo naag mataqaana anigu waxaa doonayo oo passionate aan ku ahay lagu leeyahay I need you to stop doing this come on now meel haygaga dhicin ayayaade come on anyways alaa kulli xaal ayayaal oogama tagin TikTok reportka la igu sameeyey kali iyo waxaasi laakiin waa waqti account-kan oo hadda leeyahay oo TikTok waqti badan baan geliyay waa ogtihiin maxaan ku dhahaa precious time ba igaaga dhamaatay runtii ma ahan waqti waste ah because you know what I met so many beautiful souls dad wanaagsan oo de masha Allah ah maxaan ku dhahaa aan asxaab noqonay I don't regret having TikTok. I think that was a beautiful place for me. Platform mataqaana dadka ku barto, but I think it's my journey with TikTok has ended. And ma ahan kali reportka lagu sameynayo iyo waxaasi laakiin account-ka waa account aniga it really means a lot to me. And mana doonayo account-a saa ugu soo rafaaday in laga tirtiro and then I have to start scratch mid kale inaan sameeyo absolutely no way ma dhici karto so videoyaashii oo dhan waa wada xiray dadka ay report gareynayo hadda imika maxay report gareyn doonaan nothing absolutely nothing so dadka ay report gareeyay ama ay report gareeyo jiq bay idinku ahaanaysaa sababtoo ah wixii oo dhan baan idinka xiray and I know waxaa isleedahay adigu dee marba haddaad mataqaanaa social media soo geshid adkaysi waana lahataa absolutely waana leeyahay adkaysi sababtoo ah waxaan arkay bishaan hadda ku jiro iyo bishii horeyba kal iyo laab oo dhaawac ah video weliba aan soo gelin inaa dhag lagu soo siiyo meesha kama xiro dadka commentka waa u dhaafaa xorriyad bay u leeyihiin ha caytamaan because ajarkoodii baan ka qaadanaya anigu xasanaadkoodii baan ka qaadanaya you know because qofaa wax yeelay ma ahan laakiin at the same time you have to know boundaries you have to dadka mataqaanaa markay kugu xaq gudbaan aad u aamusto they have to have like some mataqaanaa it has to be mataqaanaa meel dee aad istaagi kartid you know so aniga hadda marka TikTok waa ka niyad jabay runtii wallahi waa ka niyad jabay aad baan u jeclahay meelaan mataqaanaa waqti badan kaliya bay ahayd meelaan dadka mataqaanaa u qalbi furnaay aad iyo aad soo dhaweynayay everyone the same bay yihiin imikana the same bay yihiin wallahi qofna mataqaanaa anigu kalama dooranayo because dadka badanaa meesha aan iga soo faalo gari waa dad aad iyo aad aan u jeclahay iyagana aad i jecel yihiin inta xunna meel waliba way jiraan every platform dad xun way jiraan at the same time I got really disappointed videoyaasheeda anoona waxba sameynin la report gareynayo now way dhici kartaa in dad bay report gareynin oo waxaan ay yihiin TikTok oo doonayo dadka inay mataqaanaa certain number ayna gaarin intaa ka badan loo ogoleen there is that possibility cilada inayba ahaanba dadkeena oo dadka report gareynayo dadka Soomaaliyeed oo dadka report gareynayo ay tahay cilada TikTok oona doonaynin in oo mataqaanaa dadka oo big account ay meesha ku sii jiraan niyad ku ridaan ay ku qasbaan inay mataqaanaa second account iyo third account iyo waxaas ay soo furtaan from scratch ay bilaabaan you know laakiin aniga I think I'm done energy uma hayay account la xiro mid kale soo sameey waqti kale sii gali I don't have that energy marka imika hadda kadib insha Allah waxaan isla kulmeynaa YouTube kan fadlan haddaa ku cusub tahay subscribe-ka noo saar follow na soo dheh
si laan dheernimo ku jirto, codsi qasab ma jiro meesha, laakiin waa codsi oo nasabnimo ku jirto, oo laan dheernimo la socoto, oo walaaltanimo la socoto. Subscribe dhaha, like-kana dee waa ka, comment-kana kusoo tuura si laan dheernimo ku jirto. waxaan doonayaa insha allah biidni illah waqti badan inaan geliyo YouTube, barnaamijyaal badan inaan soo dhigo. maxaan ku iraadaa TikTok-na haddaa iga soo raacday meesha igu soo qor from TikTok, aad baa u mahadsantihiin. ma doonayo qofna mataqaana inaan qalbiga wax ugu hayo. And I don't want to feel sad the fact that I'm kasoo tagay TikTok. I'm gonna take this opportunity as a way of mataqaana new adventure and new things aan bilaabi doono insha allah. I know inaa mataqaana ka xuntihiin badanaa, and it does sadden my heart wallahi runtii. been kuma sheegayo living TikTok. I have to think about it a lot. sababtoo ah waxay igu noqotay dhaawac comments-yaasha badan aan arko oo cayda badan, like literally xaggaa bay taabatay, and literally qalbiga bay taabatay, dareenkaygii bay waxa u dhintay. marka ma fiicno meel noocaas oo kale oo toxic ah inaad kusii jirtid. marka fi amaanillah baan idin leeyahay. soona dhawaada this new journey with me, soo dhawaada ii kala kacee insha allah fadlan YouTube-ka. maxaan idin leeyahay aan kusoo daraya. The other thing is, you know, TikTok toxic bay noqotay. Toxic waxay u noqotay dadka kale ma aha dadka small account kale, dadka big account kale competition bay iskula jiraan. Competition bay iskula jiraanoo xiliyan hebel uu dhaafin, hebel baa i dhaafay, oh my god, how can uu hebel ii dhaafay, how can uu hebel ii soo gaaray. cuqdad baaba galaysaba. cuqdada haba gashee xanuun bay u noqonaysaa. waxaa arkaysaa qofkii oo mataqaana qofkii ay saaxiibo ahayeen oo ganfuurka u taagay baa arkaysaa colaad meel ka imaaday aadan garanaynin. so that's the toxicity, because you know what, qof waliba gift buu leeyahay, something unique buu leeyahay that they bring to the table. and any platform aad ku nooshaa ama aad ku jirtid baan ka wada, aad soo gashid, aad join garaysid, wherever you might be, there's always going to be dad ku jecel, dad adiga shakhsiyan ku jecel. waxaa ka hadashid wuxuu raba ha noqdo, waxaa mataqaana aad samayso wuxuu raba ha noqdo. uniqueness-kaadi qof waliba gooni buu ilaahay u siiyey. That's what some of us don't understand. hal qof bay arkayaan oo u kala kacday, all waa laga xumaanayaa. suu u gaari kara, war suu u gaara maxay tahay? Focus on you. adiga naftirka unique baa tahay. You bring something to the table that the other person doesn't have. ha eegin waxa kale qofka kale uu leeyahay ama heybada uu leeyahay ama waxaas uu leeyahay. adiga naftirka, you have it in you. You have it in you. You just have to figure out what it is. marka dadkan qalad bay wax u fahmaan. hadda eeg dadka ajnabiga oo YouTube ku jiro ama TikTok ku jiro ama Instagram ku jiro ama Facebook ku jiro ama Snapchat ku jiro ama Twitter ku jiro, every one of them something or unique iyaga leeyihiin bay la imaadaan meesha. qofka kalena kama maseeraan, because they know they bring something to the table. There's something about them that people love and follow and or loyal fan ugu yihiin. marka anigu waxaan la yaabay dadkan mataqaana iimaanka ka tegay. certain views markay gaaraan, certain numbers markay gaaraan, like waxa weeyaan mooryaan bay noqdaan. literally waxay noqdaan dad mataqaana damiirka ka tegay, dad mataqaana dadka caynayo, dadka ku dhegayo. oh okay, hebel baan caynaya maanta, waxaan rabaa inuu numberka ii kala kaco. hebel baan mataqaana sharaftiisa, hebel baan rabaa maanta sharaftiisa iyo cizigiisana meel uga dhaco. like what is that? what is that? wax kale ma qabno anaga inaan dadka ku mashquulo mooye, inaan mataqaana viewskana kor u kaco mooye, wax kale oo anaga mataqaana consciously aan ka fikiro oo that we bring to the table ma qabno. come on now, we have to do better. wallahi that's disgusting. habeen iyo maalin dad baa isku dhegan, qof bay caynayaan oo numberkayga kor buu u kacay. oh my god, yes, haddana waa ku noqonaya u macaansaday qofkaasi because markaan caayay views badan baan ku helay. dhag way kugu dhegayaanba, dhag sida mataqaana xaanjadoo kale, dhag kool kugu dhagtay. maxay tahay waxa noocaas oo kale ah? and what are you showing dadka mataqaana ilmaha yaryar oo meesha ku jiro that is okay for adults, that adults or grown up ah inay iscaayaan views say iskugu helaan? we have to do better. anyways, aniga that's part of the reasons. so anigu naftirkayga imika, that's part of the reasons also aan uga tagay meesha, because
toxicity-gooda is just, it's not good for your soul, it's not good for your mind. Maskaxdaada uma fiicno, qalbigaada uma fiicno, you know. Marka aad baan waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin ay soo raacdeen, inta iga soo raacday TikTok, inta ka xumaatay inaan meesha ka tagayna aad baan idin raali gelinayaa. Please do understand. Sababta u sameeyay waxay tahay bullyingka, harassmentka oo been aniga lagu soo nabayo, account-keygii oo mataqaanaa la report gareynayo, anigoo mataqaanaa video weliba aan soo dhigo cay kulul lagu soo tuurayo, harassment aniga lagu sameynayo, and all of that. Marka that's reasons oo meesha uga tagayo. Aad baan idin jeclahay, soo dhawaada baan idin leeyahay. Ku soo dhawaada, qalbi furan, waji furan, maxaan ku dhahaa, jacayl, wanaag, walaaltinimo, lahandheernimo iyo ka badan insha Allah. Subscribe-ka dhac ku siiya, comment-ka igu soo tuura, maxaa jeceshiin inaan ka hadlo. And I think a lot of you guys last video aan soo post gareeyay waxaa ka hesheen barnaamijka ku saabsan relationshipska, and mataqaanaa labada qof relationshipska, inkastoo la igu yiri, you know, ragga waad haysataa naga fuq adeer macaan. Anyways, barnaamijka noocaas oo kale aad baad waxaa u malaynaya aad inaad ugu xiiseynaysiin. Igu soo qora comment-ka. Aad baa umahadsantiin again. Welcome. Subscribe, like, share, comment. Kaliya laab dhinacayna. Fi amaan illah. You will be seeing me here